waxaan rabnaa marka insha Allah haddii la raali ka noqdo inaad wax badan nagala qabatiin qaabka ay wax u dhismi lahaayeen oon maaragtay ula jaan qaadi lahayn guud ahaan qorshayaasha qaran aan ula jaan qaadi lahayn waxaan idin leenahay soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin golaha wasiiradana waxaan leenahay waan rabaa inaan halkaan uga caddeeyo dalabkayna ayuu ku yimiday wafdiga ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha aniga madaxweynaha ka codsanay ra'iisul wasaaraha inuu noo soo diro wafdi maaragtay dad aqoon-yahana qaabkii loola jaan qaadi lahaay oo Hirshabeelle ula jaan qaadi lahayd qorshayaasha qaranka dad aqoonteedii leh oo nala daadajiyo maamulka dawliga aan ka codsanay waa uga mahad celinaynaa wafdiga ballaaran oo noo soo diray sidaasaan rabaa inaad ogaatiin golaha wasiirada in maaragtay la kala faa'iideysto waqtigaas ay joogaan dadkan khibrada aqoonta u leh dadku waa dad maaragtay sababtiinba waa professor Reditoro wax badan ka soo shaqeeya dalkan sida gudoomiyuhu u sheegayba professor Yaxya waa taqaaniin asiga aasaasayaasha Hirshabeelle ka mid ahay professor Dhigay waa taqaaniin professor Baadiuna waa taqaaniin guud ahaan qiimiga ay dalkan ku leeyihiin dadkan waxay u soo qabteen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waad ogtihiin haddana diyaar waxay u yihiin inay maaragtay Hirshabeelle aqoontooda iyo waqtigooda ay geliyaan iyo dadka dhalinyarada la socoto iyaguna aqoon-yahanada waxaan rajaynayaa in laga faa'iideysan doono guud ahaanna looga faa'iideyn doono ummadda Hirshabeelle